haddana waxaan ku soo dhaweynayaa oday ka mid ah odayaasha reer Norway ee magaalada Oslo Colaad ku soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما waxaan salaamayaa mar sharaftiisu u timid gobashan aan ku taageerayno dawladda noo dhalatay nooma dhalanay hore u dhashnay ee bedeshay dawladdii ku meel gaarka ah. waxaan kaloo mahad u celinayaa dhammaan qabanqaabiyaasha dhammaan reer Norway dhammaan muslimiinta Soomaaliyeed meel walba ha joogaan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan عيد الأضحى كل سنة وأنتم طيبين. ميلو البوء جوكتان سنة كسنة كيسة عافمات يبرواق يبشبش أيان إبك كرجينينا يدولة سلطيقتا. رنهانتي كمان سو ترجلينا هذا لكن مركان هالكن إذا يا جوديجا وحي يرادين وحي رواية كثير هذا. مركان أنا وحبا أورن أيام يجوا نكسني بسنة قياسية. وايو مركان رنت كهذا dad badan oo ka carooda runta ayaa jira laga bilaabo burburkii dawladii Maxamed Siyaad Barre Allah naxariistay waxa ka dambeeyay dawlado badan ayaa ka dambeeyay ku meel gaar iminka soo laga baxay alxamdulillah rabbil alamin dawladahaas badan way burbureen waxyaabaha ay ku burbureen waa dulum ay galeen waxaad qiyaasi kartaan ama aad sheegi kartaan haddaad maqasheen laga bilaabo burburkii dawladii Siyaad Barre beelahan la yiraahdo beelaha gabooye intii dawladood ee ka soo qayb galay ee ku soo meel gaarka ahaa ma helaan xuquuqdoodii wili ma maqasheen wasiir la yiraahdo wuxuu ka dhashay beelaha gabooye wili ma maqasheen wasiir ku xigeen la yiraahdo wuxuu ka dhashay beelaha gabooye agaasimo ka dhashay beelaha gabooye waxaan u maleynayaa marka labadii xaraan ku heshiisa xalaasha ay ku dagaalantaan waxay ku heshiiyeen ra'iisul wasaarayaashii hore madaxweynayaashii hore afhayeenka baarlamaanka hore waxay ku heshiiyeen qodobo xaaraan ay ka mid tahay in beela dhan la niyad jabiyo laga tiro laga saaro siyaasadda waddanka oo dhan aanay ka qayb gelin marka dawladda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan iyo ra'iisul wasaaraha saacid iyo ninkan Norway nala deganaa Prime Minister-ka afhayeenka oo saddexdaba aan ku faraxsanahay inay yihiin saddex ma garanaya ma dhigi karo waa gacan ku dhiigla ma horta gacan ku dhiigla ma waddanka way ka maqnaayeen laakiin inay jeeb ku dhiiglayeen inay af ku dhiiglayeen inta ma cadeyn karayo marka maadaama ummadda ay u badanayaan dadkan dad mutacallimiina oo qurba jooga oo ka soo carray dhibaatadii waxaan ka codsanayaa bal saaxadii laga saaray beelahan Soomaalida oo dhan rajo weyn ay qabtaa dawladda cusub ay ka qabtaa laakiin beelahan gabooyo way rajo dhigeenba laga bilaabo burburkii dawladda Siyaad Barre aad bay u rajo dhigeen waayo wili hadaan wasiir ku xigeen agaasimeen daweybu 20 iyo dhowr sano waa biniyad jabsanaayeen marka mid walba dhalato waxay isleeyihiin waa tii hore kale kulli kursi ka heli meysaan ama maxay xaqina ka heli meysaan iska baamusa marka waxaan ka codsanayaa golaha baarlamaanka cusub afhayeenka baarlamaanka cusub ra'iisul wasaaraha cusub madaxweynaha cusub oo intaba gibigood qurba jooga sida u badan yihiin in ay dadka saaxada laga saaray oo niyadooda la jabiyay ay dib ugu soo celiyaan oo xuquuqdii ay lahaayeen ma oranayo sidii dawladda Siyaad Barre shan wasiiro hala siiyo iyo lix wasiiro laakiin waa inay ka muuqdaan golaha wasiirada waa inay ka muuqdaan golaha baarlamaanada way ka muuqdaan waa inay ka muuqdaan wasiir ku xigeenada waa inay ka muuqdaan agaasimayaasha dadka kama tacliin yara kama aqli yara kama hab yara hogaamiyaal ciidan way ku jiraan jeneraalo way ku jiraan dad mutacallimiin way ku jiraan dad ehludiin way ku jiraan marka bal wasaaradaha qiimaha leh ama wasiir ku xigeenka looga dhigo ama agaasimaha looga dhigo ama wasiirada looga dhigo waxaan ku codsanaynaa dawladaha waxa laga yaabaa inay ka dhigaan wasiirka duurjoogta waxaan loogu xelanayaa waa ugaarsadaan way Soomaaliya iyadoo qiimeey leedahay balan helno wasiirka duurjoogta والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أديار بهم أحسن تعالى